salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacano wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tabinteena wararkii ugu dambeeyey Soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena aan idinkugu soo gudbinayno ayaa waxaa ka mid ah ciidamada Somaliland oo isaga cararay furmaha dagaalka ee magaalada Laascaanood iyo ciidanka xaq-u-dirka oo qabsaday meelo muhiim ah oo xarunta gobolka ay qayb ka tahay meydadka ciidamada Somaliland oo weli daadsan furmaha dagaalka iyo isimada oo soo saaray go'aan culus oo ku saabsan meydadkaasi iyo sida loola dhaqmayo Muuse Biixi Cabdi oo weli isku dayaya in xasuuq uu ka geysto magaalada Laascaanood xilli xalay mar kale aaswadareed loo sameeyay dad Somaliland ay xasuuqday gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland oo sheegay in fitnada Laascaanood ka socota uu ka mas'uul yahay Muuse Biixi Cabdi isaguna uusan la mid ahayn koore oo u adeegaya sida uu hadalka u dhigay Somaliland iyo ciidamada difaaca xaq-u-dirka oo diyaariyay qorshe kale oo gabi ahaanba Sool Sanaag iyo Cayn looga saari karo ciidamada SNM haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay 26 bisha Febraayo sanadka 2023 waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka hormarnay wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ay sheegayaan in halkaasi ay isaga carareen inta badan furmihii dagaalka ciidamada Somaliland oo 22 maalmood dagaal iyo madaafiicba ku garaacayay magaalada Laascaanood wararka laga helayo gobolka Sool ayaa sheegaya in saakay xaalad degnaansho ah oo aan cagab badan ku taagnayn laga dareemayo gudaha magaalada Laascaanood oo ay dagaalo culus ka socdeen 22 cisho ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in degnaanshiyaha ay ka dambeysay kadib markii ay dib u gurasho sameeyeen ciidamada Somaliland ee ku sugan duleedka magaaladaasi ciidamada militariga Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in xalay ay isaga baxeen inta badan goobihii ay difaacyada uga jireen waxaana la wareegay si nabadgelyo ahna kula wareegay ciidamada deegaanka meelaha ay ka baxeen ciidamada waxaa ka mid ah guriga gobolka Sool oo ay saakay ku waabariisteen dadka deegaanka reer Laascaanood oo hubkooda wata sida ay muujinayaan muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ciidamada deegaanka ayaa gurigaas ka furay calanka Somaliland waxayna ka taageen calanka buluuga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sababta ay ciidamada Somaliland uga baxeen difaacyadooda ayaa waxaa lagu micneeyay in laba arin midkood ay tahay waa koobe dib u gurasho xeelad dagaal iyo inay isku dayayaan inay duulaan kale ka soo abaabulaan goobaha hadda ay fariisimaha ka samaysteen labo in gabi ahaanba ay qaateen baaqyadii caalamiga ahaa ee soo baxayay kuwaas oo ahaa in ciidamada Somaliland laga saaro gobolka Sool xaaladda Laascaanood marba marka ka dambaysa way sii cakirmaysaa waxaana warar hadda aan helayno ay sheegayaan in rasaas goosgoos ah iyo madaafiic laga maqlayo furmaha dagaalka ciidamada Somaliland ayaa mar kale isku dayaya in ay sameeyaan gumaad ay u geystaan shacabka xilli dagaalkii shalay jab xoogan ay kala kulmeen qaar ka mid ah dhaqaatiirta ku sugan magaalada Laascaanood ayaa sheegay in meydadka la soo gaarsiiyay ay ku jiraan ciidamo badan oo Somaliland ah wuxuuna sheegay in dadka kale ee Maleeshiyada aan la garan karin maadaama dhar caadi ah ay wataan laakiin ciidamada Somaliland la garan karo maadaama dhar lagu yaqaano ay wataan waxaana uu tilmaamay tirada dhimashada iyo dhaawaca inaysan si rasmi ah u xaqiijin karin oo marba marka ka dambaysa la soo gaarsiinayo dad dhaawacyo qaba ilaa ay xalayna cisbitaalada la soo gaarsiinayay dhaawacyo qaarkood xaalad halis ah wajahaya haddaba xalay waxaa magaalada Laascaanood duleedkeeda mar kale loogu sameeyay aaswadareed dad ay xasuuqday Somaliland intii dagaaladu ay socdeen maalmihii aynu ka soo gudubnay waxgaradka deegaanka oo halkaasi ku sugnaa ayaa waxay caalamka tuseen dhibaatada Muuse Biixi Cabdi halkaas uu ka geystay iyadoo la tilmaamay in tani ay muujinayso inay tahay arrin Somaliland ay go'aan rasmi uga gaartay in gabi ahaanba ay meesha uga saarto wax walba oo jiritaan nololeed ah oo magaalada Laascaanood ku saabsan Somaliland ayaa waxaa hadda la doonayaa in lagu sameeyo baaritaan xoogan xasuuq ay ka geysatay magaalada Laascaanood iyadoona loo arko Somaliland in duulaanka ay ku soo qaaday magaalada Laascaanood gabood falle xoogan ay ku geysatay sidoo kale isla Somaliland jab xoogan ayaa ka soo gaaray weeraradan maadaama ciidamada Somaliland dagaal magaalo inaysan garanaynin la ogaaday
ciidamada jabhadda SSC ayaana ku hanjabay inay sii baxsan doonaan inta ka hartay ciidamada Somaliland. Ciidamada Somaliland ayaa inta badan dagaalka maalmihii ay socdeen waxa ay u weeciyeen in madaafiic ay ku garaacaan qaybaha kala duwan ee magaalada Laascaanood, taasi oo lagu micneeyay inay muujinayso in ciidamada Somaliland mar walba fashil ay dhexda ka fadhiyaan. Xaaladda magaalada ayaa aad u sii cakiran, waxaana furan dagaal isku bedeshay magaaladii aadka u quruxda badnayd ee ganacsiga iyo weliba wax soo saarka caanka ku ahayd, iyadoona magaalada hadda marka aad fiiriso sawirada laga soo qaadayo ay u muuqato meel lama degaan ah oo lagu dagaalamayay ilaa 1991. waxgaradka deegaanka oo ay ku jiraan macallimiintii dugsiyada wax lagu barto iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyagu waxa ay qaadeen tallaabooyin dheeraad ah. Qof walbaana qorigiisa ayuu soo qaatay, iyagoo tilmaamay 16 sano oo cabursanaan ah kadib in hadda ay gaareen heerkii ugu sareeyay oo ay isaga dulkicin lahaayeen ciidamada Somaliland oo ay ku eedeeyeen inay yihiin ciidamo dhibaato xoogan ka wada magaalada Laascaanood. gudoomiyaha baarlamaanka Somaliland ayaa isagu waxa uu ka hadlay xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood, isagoo runta u sheegay saaxiibkiisa Muuse Biixi Cabdi kuna eedeeyay in wax walba oo ka dhaca magaalada isaga uu ka mas'uul yahay. anigu waxaan matalaa Sool, ma matalo Burco, Hargeysa iyo Gabiley, mana ihi nin u shaqeeya sida wasiirka hore. xarig walba oo nabadda lagu xiro waxaa furfura Muuse Biixi ayuu yiri gudoomiye Cabdirasaaq Khaliif oo warbaahinta kula hadlayay Laascaanood isagoo ku sugan. waxaana uu tilmaamay gudoomiye Khaliif in Muuse Biixi Cabdi lagula xisaabtami doono dhibaatooyinka ka dhasha magaalada Laascaanood. waxa uu fariin culus u diray Generaal Mahad Cambaarshe iyo weliba wasiirka hore iyo weliba Inakaahin oo ugu baaqay in ay gabi ahaanba dadkooda qayb ka noqdaan oo faraha ay kala baxaan arrimaha Somaliland. halka sidoo kale uu ugu baaqay Adna Aadan oo horinaysa colaadda magaalada Laascaanood in ay faraha kala baxdo maadaama maamo waayeel ay tahayna ay ka shaqeyso nabadgelyada. waxaa sidoo kale uu sheegay in macquul aysan ahayn in mar walba ay iska dhageystaan waxa dadka ay ku hadaaqayaan oo ah cid walba oo Somaliland ah oo markaasi ku taageeraysa Muuse Biixi Cabdi in dagaal uu ku sii wado magaalada Laascaanood in iyadu ay argagixiso tahay. xaaladda magaalada oo halkaasi maraysa isimada ayaa go'aan culus soo saaray, waxaana ay tilmaameen in meydadka ciidamada Somaliland laga laayo xurmad ay leeyihiin oo muuqaalo aan laga duubin, sawirrana aan laga qaadin oo aan la bahdilin, isla markaana meydka marka la arko way habboon tahay in la asturo. xaaladda magaalada Laascaanood beesha caalamka ayaa isha ku haysa isla markaana dalbatay in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo gaboodfallada ciidamada Somaliland ay halkaasi ka geysanayaan. marba marka ka dambeysa waxaa sii cakirnaanaya xaaladda magaalada Laascaanood oo 21 cisho dagaalo iyo duqeymo xoogan ay ka wadeen ciidamada Somaliland, iyadoo Somaliland haatan ay u muuqato in jab xoogan ay kala kuluntay daraawiishta oo iyagu ah aabaha dagaalka ee Soomaalida, taariikh fogna ku leh marka loo eego xagga xorriyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. barashada quraanku waa waajib kastoo saaran qof kastoo islaam ah, siibahaan waalidka qurbaa ku nool. waalid ubadkaaga bar inta ay yaryar yihiin quraanka kariimka ee culumta shareecada islaamka, adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Madrasatul Quraan Online oo ah dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca. waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sane ubadka. culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka, barashada higaada afka Carabiga, barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka Soomaaliga iyo barashada culumta shareecada islaamka sida fiqiga, axaadiista, tafsiirka iyo culum aad u fara badan. dugsigana ay wax ka bartaan arday kala joogta qaaradaha dunida. waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la barayo diinteena islaamka. haddaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga Madrasatul Quraan Online. wixii faahfaahinta dheerna waxaynu kala xiriireysaan taleefanada shaashada idinka muuqda. wixii ku soo kordha xaaladda magaalada Laascaanood oo xil walba dagaal uu ka qarxi karo waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkeena dambe. halkan isha ku hay muuqaalkan la sii wadaga asxaabtaada kale aan si wada jira ugu duceyno walaalaha daraawiishta meel kastoo ay joogaan inay guuleystaan. mahadsanidin.